FX Prime sidee baa looga furtaa live account su'aalo badan baa iga soo weydiiseen kadib markaan hore uga sameeyay Just Markets oo isagana dabcan broker kale oo weyn sida account real looga furto marka waxaa jiraan dad badan oo passport saanaysan maadaama inta badan Just Markets ayna ogoleen ID kaarada Soomaaliya marka FX Prime baa ku anfacayo isagana broker kale oo si arkaysi ilaa iyo up to 5 million traders ay ku trade gareeyaan oo ay trust gareeyaan isla markaana dhammaan marketska kala duwan aad ku trade gareyn kartid si la mid ah markaas periodkiisa uu iska yareeyaa akoonno kala duwan bixiya haddaba let me show you saa akoon ugu furan kartid open account waa leedahay dooro become a client halkan imo falaarta fur dooro wadanka aad joogtid mesela hadda Soomaaliya tusaale ka soo qaadana Soomaaliya dooro halkan first name ka last name ku waxa gelisaa ID card ka haystin magaca ku yaala si sax ah u geli si la mid ah halkan phone number kaaga si sax ah u geli iyo email ka doonaysa inaad ku samaysatid halkan individual ka tagto u deene tanna tagto ka qaadaysa halkan baa saarsanaysa kadibna register now baa leena hadda marka xogtaas oo dhan aniga waa soo dhameeyay sida arkaysa waxa leeyahay register now verification code oo 6 digit ka kooban waxa kugu soo dirayaan email-ka aad ku samaysatay email-ka imanayna code-ka waa kana arkaysa oo binki soo koobi gareysanayna and then xagan baa imanaysa waxaan ku leedahay control v then waxa la verify code steps kana markaad ku bilaabanay email-ka waa ka soo gudubtay ilaa 6 step ka kooban yihiin hadda waxa laga rabaa personal details email-keena oo soo verify garan xagan baa imanaysa magacyadeena soo isticmaalnay waxa ku daraysaa kaliya date of birth kaaga address-kana waa inuu mid ah heli kartid ama ha noqdo maaragtay waraqada Swift code bangi ka soo qaadatay ama transactions waxa way mataqaana bank transactions noqoto ama maaragtay water bills ka noqoto ama electricity bills adiga waraqad address waa inay haystid oo maaragtay aad tool proof ka ku sameyn kartid oo nimanka u diri kartid waliba waraqada waa inay leedahay back iyo maaragtay front waa inay leedahay qayb hore iyo qayb dambe oo labada dhinacba date-kana waa inuu noqdaa isla waqtiga sameysanays bishan waraqada lagu keenay isticmaal wafaan Soomaaliya haduu noqdo bilo hore sanad hore aday noqoto ma ku aqbalayaan qodobkan waa muhiim xagana city iyo town-ka iyo macnaha waxa la dhahayo state-ka ay joogtid baa gelinay midalan waxa way mataqaana hadaa joogtid Muqdisho oo kale xagan Muqdisho gelinay xagana waxa gelinaysa Banaadir waa garsoma hadaa joogtid Garowe oo kale xagan waxa gelinaysa Garowe xagana Nugaal baa gelinaysa macnaha state-ka saas oo kale country-ga iyo zip code-kana 252 baa iska isticmaalaysa country-gana uu ku dooran yahay xagana gender-ka ka dooranaysa rag iyo dumar waxa tahay meeshana no baa iska leeyahay hadhow taxi lagu soo rogin US citizenship ma baa leedahay xagana tagtaa saaraysa intaaba buuxina kadib next baa leedahay xogta waa soo buuxiyay hadda waxaan leeyahay next sidoo kale ana ka ilaawi date of birth waa inay isku mid noqdaan sida uu ID-gaaga ugu yaalo waa garataa malaya qodobka saddexaad baa soo gudubnay trading account-keena sida gareysanayna marka xagana imanaysa MT5 ka iska dooro inaad ku trade gareysa MT4 doonaysa in isaga dooranay labadan nooc ee akoonnada keeba rabtaa marka kan baa dooranayna because of kan deposit-kiisa ma awoodi kartaan badana $500 baa ugu yar marka kan baa iska dooranaysa prime synthetics baa yiraahdaa isaga dooranaysa base currency waa USD BBS waa iska yareen ama spread BBS-ka commission-ka waa 0 waa garad Soomaa dana waxaan leenahay marka next xagan marka ay maat experience muu leedahay maaragtay trading-ka waxyaabaha CS baa leedahay kadibna next baa leedahay waa qodobkii shanaad way deposit-kaaga ku weydiinayaan waa ilaa up to 2000 without KYC hadii aad doonaysid inaad maaragtay ku dhigatid laakiin KYC-ga baynu maraynaa sidaa darteed skip baynu iska leenahay KYC wax kale ma waa proof of identification iyo proof of residency inaad samaysid okay marka ka nationality-gaaga isaga ku horeynaysa ID card baa haystaa Soomaan ID card-ka kana dooranay passport baa haystaa Soomaan kana dooranay license hadda haysto ka marka documentiyada soo gelisid midka identification-ka iyo midka address-kaba upload garee kadibna waxa sugi doontaa inta ay ku soo verify garanayaan hadda dashboard-kan dib ugu laabanay si arkaysa marka hadda dashboard-keena imaanay account-kaaga live-kana waa kana dabcan يعني balance-ga waa 0 total equity waa 0 total credit waa 0 hadhow xagan baa ka arkaysaa trading history-gaaga waxa la midka marka lacag soo deposit gareysa xagan baa ka arkaysaa balance-gaaga marka hadhow toolo lagu verify gareeyo ee doonaysa inaad deposit samayso xagan baa imanaysaa just plus-kana dooranaysaa qaybta deposit-ka mega deposit baa leedahay and then xagan ma lacagta deposit gareynaysa midna hadda haday tahay $20 kala deposit gareynay lacag yar iska deposit gareysa marka hore kadibna xagan tagta saar and then waxa leedahay deposit xagan marka maatay kaarkaaga ku deposit gareysan kartaa waa garad Soomaa waxa weeyaan mataqaana kaar numberka xagan gali dabcan wada garanaysaan magaca kaarka ku qoran waxa weeye expiry date-kiisa CVV-ga waa garanaysaan dabcan waxa ayaaba xaga gashan doontaa currency-ga sida u daa lacagtii aad deposit garanayso $20 kadibna deposit baa leedahay automatically sidaabay lacagtaadii ee maaragtay waxa weeye mataqaana yacni account-kaaga ay kugu soo gelay profile-kaaga iyo account-kaaga login-kiisa iyo ID-giisa aad u baahan tahay ID-ga account-kaaga xagana waa isaga ka muuqanaya mid kale profile-ka tagi kartaa في قيمة بروفايلك مركز تكتي أكونك حقتي ولا حاجة أنا كارك trading أكونك دوكيومنتية هذه agreement كذا دون سنة
passwordka iska bedeshay settingska akoonkaaga xitaa badan baa maaragtay ka sameyn karaysaa. So I hope inuu muuqaalkan ku caawiye. Saxibadana la wadaag. Nabadgelyo.